weligay waan wada xiriiri jiray imaaraadka anoo jooga anoo sidii kala ah anoo xumaantii iyo qurunkii iyo fuxshigii ku jira baan la soo xiriiri jiray hooyada oo lacag soo diri jiray ilaahay waa iga saxeeyay ama xalaal aan ku soo helo ama xaraan aan ku soo helo hooyada lacag waa u diri jiray subxaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala ben sheeg maayo oo xaramkii baan jooga walaalayaal wax kasta oo aan hooyaday u diro caqabad waxa ku noqday adeerka odaga adeerkayseen oo hooyaday la taagnaa waa adeerkay waxbaana dhex maray ciyaalkaas aad waxa weeye walaalahay maanta isagana aabba u yahay anigana waa walaalahay ma kala go'i karo laakiin waa nasiib darro nin weyn waa 70 jir waxaanu isku jiray waxay ahayd wax kale ma aysan ahayn hooyaday si fiican u dhaq iyo saan doonaan ka yeelaya waana sidaan doonaan ka yeelaya wax allaale iyo waxaad u soo dirtana waa cunaya hooyaday waxba ma qabsan karto madaxii buu ka waalay wuu wareeriyay sidoo doonu u galay waa u tagay waxaa saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada aad u qabsaday maamo ama hooyo sheegtay inay dhashay isla markaana hooyo u tahay Axmed Kheyr oo hore fanaan u ahaa isla markaana la oran jiray Axmed Biif. Axmed Kheyr ayaa waxa uu sheegay in xagga wanaaga hadda uu wacday isla markaana tiro dhowr jeer waxa uu tagay xaramka. Hooyada ayaa tilmaamaysay in wiilkeedu uu dayacay sidaa daraadeedna uu meel cidla uu kaga tagay muuqaalka hooyadaasna waxa uu qabsaday baraha bulshada. Dadka ayaa siyaabooyin kala duwan muuqaalkaas kaga falceliyay hooyadana waxay lahayd waxaan u baahanahay wiilkaygiiyow guri aan ku noolaado waan dareemi karaa tiro dhowr jeer xajka ayaa tagtay aniga waxaan ahay qof dayacan marka waxaan u baahanahay garabkaaga. Fariinta hooyadaas waxay murugo badan ay ku beertay dad badan kuwaas oo siyaabooyin kala duwan kaga falceliyay hadalka hooyada. Canaanta iyo sidoo kale hadallada soo gaaray Axmed Kheyr ayaa waxay noqdeen kuwa isdaba jooga balse muuqaal isagoo ilmeenayo iska soo duuba ayaa markii ugu horeysay uu kaga hadlay arrintan waxaana fariintiisa uu ku yiri anagoo soo qaadanayna inta ugu muhiimsan aniga caasim ma ihi wallahi xaramka ayaan joogaa sidee la iga aqbalayaa salaada haddii aan hooyaday caasi ku ahay hooyaday ninka qabo salaad ma dukado ma soomo waan la hadlay salaad duko ilaahay ka cabso ayaan ku dhahay wax kasta waan u sheegay waa uga diiday maxaan sameeyaa hooyaday waan jeclahay mar kasta ma necbi beedhaba xitaa mar ayaan tagay aniga ninkan hooyaday qabo dhibana ayaan u ahay mar walba hooyaday ayuu dhibaateeyaa dhaawacyo kala duwan ayuu u geystaa sidaas waxaa yiri Axmed Kheyr oo ku sugan dhulka barakeysan ee xaramka. muuqaalku Axmed Kheyr uu iska soo duubay waa haamid uu ilmeynayay isla markaana uu kaga hadlayay xaaladda haysata waxa uu tilmaamay isla markaana uu ku adkeeyay in hooyadiisa hadda ay la nooshahay ninkaasi sidaa daraadeedna ninkaas uu yahay shakhsi aan salaada dukan isla markaana aan hal mar sujuudin. waxa uu tilmaamay Axmed Kheyr inuu jeclaan lahaa in gacantiisa ay soo gasho hooyadiisa si uu u dareemo naxariista hooynimo isla markaana uu u garab qabto hooyadiisa. dad badan ayaa dhinaca kale siyaabooyin kala duwan kaga falceliyay hadalka ka soo yeeray Axmed Kheyr. dadka qaar ayaa tilmaamay in hooyadiisa wiilkan dhibaatooyin kala duwan ay wajahayso isagana awood uusan u lahayn in hooyadiisa gacantiisa uu soo geliyo laakiinse marxaladaha ku hareereysan isaga ee u diiday in hooyadiisa gacanta uu ku soo dhigo ayuusan weli faahfaahin ka bixin balse waxaa la tilmaamayaa in ninka uu ka cabanaya Axmed Kheyr uu yahay shakhsiga hadda ay u dhaxdo hooyadiisa isaga laakiinse marxaladaha isaga uu dareemay hadda waa mid dad badan ka ilmeysiisay maxaa yeelay fariinta uu soo diray waxay ahayd mid murugo badan xambaarsan.